hablaha waxaan leeyahay waa la boodboodaa waa la jaasaa dhalinyaranimadu waa la qaataa waxaan ku kornay xaafad aad u qurux badan oo ma garanaysaa hooyo walbo dariskayga ay hooyaday tahay aabbo walbo dariskaygina aabbahay yahay waa tahay daawadayaal waxa dhinacayga taagan Nasra Cabdiraxmaan waxaan ku sugannahay xafladda xiritaanka siirada tartanka siirada sheekhadan siiro ilaahay naxariistee Nasra dhinacayga taagan maanta way ka soo qayb gashay wal Nasra dareenkaaga ka waran والله dareenkayga naciimay lama soo koobi karo allahumma baarik waxa weeyaan horta xalay maseexano sidii baan soo jeedaa maalmahana allahumma baarik wanigi hawshan nasiiba la waday waxa weeyaan aniga farxad gaaray ii tahay waayo waxa weeyaan aadan siiro wuxuu ahaa horta waa carruurtayda adeerkood taa marka laga imaado waa aabahay saaxiibkii waa gurigan ku dhashay masaajidku waa masaajidku aabahay memberka ka ahaa safka hore aad bay farxad gooniye iigu tahay inaan maanta ka soo qayb galo oo hawsha waliba qayb la xaalna ka qaato waxaan u ducaynayaa waalidiintay oo kale waxaan ku kornay xaafad aad u qurux badan oo ma garanaysaa hooyo walbo dariskayga ay hooyaday tahay aabbo walbo dariskaygina aabbahay yahay aabbayaasha iyo intii dhimatay ee aabbahay ugu horeeyo ee Axmed Xasan Barre ku xigo oo Garnayl ku xigo ee Saxardiid Jaamac ku jiro ee Laakiyaala ku jiro اللهم بارك محل رحضاي خضر محل رحضاي المجري برواقة أبوه معنا يا أبياش موجع عليه وكلا وكتير شاركي حقها والدين تي أنت دمتي إلهي نحرستي كناها وجود مساجد كاكا أها منبر كأها أنا قلفت جوا هالكن مدرسة كبل عبايو مسجد الفرقان بان بيجنشري أو حويا هالكن كصابر بعريان كودكتي أنا كفرحت جونية درين جونية أي خشوع قونية ما أنت إيه لحيد الحمد لله رب العالمين مثل بعض أنا إمك واحد على هذا حتى إمك واحد بالله يهدي له هيدا نعيماي إن القرآن كي أن يرانتي كل واحد ربي بالله ما شاء الله إيه تفسير كيسا إيه سيرة النبي هدي له هيدا على كان نقضه عيال كانوا واحد ربه هدي له هيدا إمك لما أنت يينا نوضب بلونه بأدون كي واحد بلغ ما قاضي نعيماي إن ما ركت أنت اللي سوبه بود كريه العيال كريه بحينا وتكشر تابلي حاضرت ولا نبحينا عمرة هدي له هيدا هذا إلهي وحنا ويدي سنينا إلهي نودن بدعف دمانتين حبله ودنا إلهي عمرة كانوا هذا كانوا وانكوهم بليين إن مركز الضحات يكون نقنص أتجي دومت إن حبلها وحنا لا يحي إن ولا بودا ولا تعسى دن يرني ماذا ولا قاطع لكن وحويا هكا إن كدم بيننا إن نوسي الله بدي مترها إن نوسي شقي سنة هل كان وحنا ما هاد بلارن وقصو شيء دنيا مركز قويس كي يبرنامج كنا ينشوفنا يراعي هذا سيرة عن كإماته waxaan si gaar ah ugu mahad celinaya aniga macallimadayda nolosha suhuur guuleed macallimada istiqfaarta ay bartay xawqalada ay bartay ducooyinka inta ugu badan ay bartay ee qisas u dikr wallahi markan haddaan isiraahdo ka sheekee suhuur ma soo koobi karo dareenkayga waxaa dhici jirtay inaan xafladaha aad u tagi jiray timahana waan qaawin jiray weliga suhuuriga may hor iman group aan ku jiri jirnay intaana qisas u dikr u soo wareegin قصة دوك السكر قلبي لو ريكتي بان كوتشري وحلو قولن شري ناقة أنت ما قوية إيه ما رحتي إن حفلتها تجي صورت فيسبوك وبوست قراينية إن ما هذا الشيء والله إنه لو الشيء ده ما يدرسين حتى أنا جي قبل بدنا إلى مذا وحويان وهلك أي يقصوا عن قبضتي وهلك عن قولها بدن كجاري وهلك فرحتها بدن كهلي وهلك عن نلشة دجناشه هذا يسلي كذا بكهلي سهور وحلا يقولد إلهي رالله كان نقضه abaalkaagana waan ku hayaa waxaan rabaa cimrada markan ka soo noqdayna shahaada sharaf u diyaariyo biidnillaahi tacaala oo anigii adiguba gurigeeda ugu tagno hadii ilaahay raali ka noqdo cimradana waan uga soo ducaynay iyadii aabaheedba biidnillaahi tacaala adeer guuleed ilaahay naxariista jannaha ugu deeqo naciimay cid lagu jiraba ilaahay ugu xan leeyahay horta ummadda islaamka ah waqtigan aynu joognaa waa aakhir saban waa waqti ma aragtay hooyada dhiiran ee wax qabsatay ee taaba gashay ee ilmaheedii nafteedaba marka ay ku filaatay meel istaagtay halkii la oran la allahumma baarik ma sha Allah mar walba la xagxagto la ceebeeyo halkan waxa aan ka cafinayo ummadda islaamka oo dhan maadaama bari beedka ilaahay tagayo dad badan ay dulmeen mar labaad baan leeyahay halkan cafis iyo musaamax waxaan leeyahay qof kasta oo cirdigayga iyo sharaftayda waxaan ahayn iyo ka ilmahaygaba ku dulmay siyaasad darteed amba fikir aan ku kala duwanaanay darteed igu xagxagtay waxaan leeyahay ilaahay jacaylkiisa ku bedeshay